وسكر استاجن سانا وفيري ومربحوا وبلعبي لا مركي من وادنا حول أكواني وأنا ma jirto dareen ka xanuun badan in gabar Soomaaliyeed loo gacan qaado waliba dhibtaas intaas la eg loo geysto waliba si bilaa naxariis ah loo dilo waxa baryahan baraha bulshada aad u haystay ama qabsaday gabadhan Soomaaliyeed ay aad muuqaalkeeda arkayso waxaana sidan u galay nin qabay kaliya 19 maalin oo ay iyada u arkaysay in uu yahay adduunkeeda iyo qofka ay ragoo idil ka xolatay laakiin ku noqday dilaa dhibkaas u geystay bal ka waran ninka sidaas u galay gabadhaas haddii uu hamigeedu ahaa inay hooyo u noqoto ilmihiisa ayna ku garab istaagto noloshiisa sidii uu horumar ku gaari lahaa sidee wax u dhaxmareen labadooda halkuuna ka dhacay dhibkaas maxay tahay sababta uu sidaas ugu dilay gabadha xaaskiisa ahayd una dhaxday kaliya 19 maalin muuqaalkan ayaa si fiican ugu faahfaahin doona laakiin inta aanan gudaha u galin muuqaalka qaybta like la saaro dareenkaaga ku muuji adigoo isticmaalaya emojiga kadibna sii share garay muuqaalkani si uu u gaaro saaxiibo badan oo sidoo kale wanaagsan qaybta comment-gana ama faalada ku soo qor sida aad u aragto dhacdadan argagaxle Fartuun iyo Shiina waxay aroos ku galeen xirada xagar dheer dhowr iyo 10 maalin ka hor sida idin muuqata sawirada qaar waaba arooskeedii oo dhawaan u dhacay laakiin Fartuun ayaa kala kulantay saygeedii cusbaa wax aysan horay ugu arag oo naxariis darro ah iyo inuu diyaar u yahay inuu dhibaato walba u geysto waa tan Fartuun oo ka sheekeynaysa sida ay wax ugu dhaceen iyo dhibka uu u geystay ninkeedii مقنا سفر يرجري حافظة أنا جوو إيه ما ذي مخرب بدي مركيه سوف يقول حافظة أذينا عشان أكرم ساهي وين يقول ده ما بحنا مركيه ده لو وسع ميراث حافظة أني بس كل ما كانت في مركان الباب ما كنا يقول الباب كيس حري هذا تكون مسافر خلق مسافر حاجة أنا كده عام بقول يا بكي حرسة مركز يقول ده محافظة كده هذه وش يصير بنانك بنانك تفضل صوري هذا أنا جابر يسوي بيه قال أنا تصبر هذا أنا سوق فلي جودري يعني أنا إسكيل فلست مركان فلست وجودري وسكر استاجن سانا وفيري ومربحوا وبلعبي لا مركي من وادنا حول أكواني وأنا intaas oo kaliya uguma ekeenin dhibta uu u geystay gabadhani dhibanaha u ah saygeedii oo ay ragga kala soo dhaxbaxday waxay tiri intaas kaliya iguma ekeenin aniga waan suuxay isla markiiba asagana waxa uu igu dhufan karay ayuu igu dhuftay jilib feer iyo haraanti wax uu ii reebtay ma jiraan wax waliba oo awoodiisa ahayd ayay tiri iyadoo wajigeeda ay ka muuqato dhibka uu u geystay bal ka waran gabadhani sidaan u quruxda badneed marka uu ka soo guursanayay reerkeedii ay ku soo maamuuseen ayna ku sharfeen inay siiyeen gabadhooda laakiin muddo bil ka yarna markii uu qabay uu sidaas u galay qiil ma lahan ninka gabar Soomaaliyeed sidaas u gala mana jirto wax qiil ah oo loo raadin karo waa inuu cadaalad maraa lana dhadhansiiyaa xanuunka ay dareentay gabadhani waa tan ayada oo ka jawaabaysa Fartuun su'aal ahayd gabdhaha qaar ayaa markii raggooda sidan uu u galo iska cafiya bal ka waran haddii gacanta lagu soo dhigo ma cafin lahayd ninkan ayaa ilaa hadda aanan la ogeyn halka uu ku sugan yahay kaas oo cararay markii uu gabadhan dhibka u geystay waxaana laga codsanayaa adiga muuqaalkan daawanaya inaad sii faafiso si gacanta loogu soo dhigo arxalnaawaha ee sidan u galay gabadhan Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan Allah kaaga baryeena inaad caafimaad taam hesho insha Allah maalin uun waad caafimaadi doontaa Allah ku caafiyo cadaaladda kugu haboonna waad heli doontaa insha Allah adiga ahaan daawade haddii lagu dhihi lahaa xukun ka gaar ama go'aan ka gaar kayskani ama fursad lagu siin lahaa inaad go'aanka adiga gaarto maxaad ku xukumi lahayd ninkani gabadhani Soomaaliyeed sidan u galay wax ma ka arkay indhaha waxyar ka arkay intee ku macnaha indhaha iyo meel flow wax kala dhuftay dabeecadaha muulaha 19 casho ka hor macnaha markeed xogaa isguursateen kadib miyaad ku aragtay mise marka hore inuu qof dabeecad xun kadib dabeecadaha la soo baxay marna iska fiicnaa